بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عالو ناكسن داود المربى joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Hiiraan online oo xiligan oo kala aad kala socotaan barteena internetka wararkeena waxa ugu waaweyn sareeyo gaas daahir aadan cilmi naqarshe oo ku eedeeyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu u diiday kursigii reerkiisa uu ku lahaa in uu u tartamo madaxweynaha guddiga doorashooyinka heer Puntland ayaa iscaasilay sababta ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa midowga Afrikana waxa aan faahfaahin ka bixiyeen howlgalka ATMIS wuxuuna yeelan doonaa ciidan guurguura oo burburiya al-shabaab sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen qodobadaas kuwa kale u diyaar garooba saaxiibayaal aan ku bilaabay taliye hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo gaas daahir aadan cilmi naqarshe ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inuu diiday kursigii reerkiisa uu ku lahaa in uu u tartamo daahir aadan cilmi naqarshe ayaa shir jaayad ku qabtay magaalada Gaalkacyo wuxuu ra'iisul Rooble iyo guddiga doorashooyinka ugu baaqay in kursigaasi loo diiday xakiyaan ilaa inta cadaalad sax loo helayo guddiga doorashooyinka galmudug ayaa kursigan uu u sharaxnaa in naqarshe hob 20 waxa ay xalay soo saareen jadwalkiisa doorashada waxaana loo xiray dumar oo kaliya inay u tartamaan inta qasho wuxuu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in aysan xaq u lahayn in dumar laga dhigo kursigooda isla markaana kursigaasi muddo badan ay ka wada hadleen madaxweyne Qoorqoor isla markaana uu hore ugu ballan qaaday kursigaasi in uu isaga siin doono laakiin uu u baahnaa tartan cadaalad ah beddelkeedana madaxweyne Qoorqoor uu kala kulmay wuxuu filayn sida uu hadalka u dhigay wuxuu uga digay saraakiisha ama madaxda ka dambeysay ciidanka inaysan ku kadsoomin hoggaanka dambe ee maamulka galmudug isagoo sheegay in beeshiisina ay tashi dambe ka yeelan doonto kasimid ahaanshaha maamulkaasi waxa ku dhawaaqay inuu iscaasilay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland Aynaansha Yuusuf Xuseen sida uu ku qoray warbixin uu u diray xubnaha guddiga qoraalka ogeysiiska oo la gaarsiiyay wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Puntland guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal ayaa lagu sheegay in si shakhsi ah isaga casilay xilkii guddiga anigoo ah biira Aynaansha Yuusuf Xuseen kana tirsanaa guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland waxaan halkan ka cadeynayaa in arrimo shakhsi oo ii gaar ah dartood aan isaga casilay xilka xubinimada guddiga waxaan kale oo cadeynayaa in sidoo kale aan iska casilay xilkii ku-xigeenka guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee City Puntland ayuu qoraalkiisa ku yiri Aynaansha sidoo kale wuxuu uga mahadceliyay guddiyada kala duwan ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleed inay ka wada shaqeeyeen muddo sanad iyo dheeraad ah oo ka tirsanaa guddiga marka laga soo tago Aynaansha Yuusuf waxa uu si shakhsi sheegay inuu isku casilay iyadoo oo xogta aan helayna hadda ay sheegaysa inuu u tartamo kursiga hob 220 kaas oo hadda ku fadhiyo Cabdirashiid Maxamuud Xasan oo isku hayb yihiin waxaana dhawaan si rasmi ah loo shaaciyay in kursigaasi jifadiisa loo soo wareejiyay midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya ayaa isku meeligay qorshaha lagu bedelayo howlgalka AMISOM iyadoo la bedelayo magaca howlgalka loona bedelayo ATMIS howlgalkan ayuu qorshuhu yahay inuu bilowdo bisha Abriil waxaana ogolaansho uu ka haystaa labada dhinac ee guddiga nabadda midowga Afrika iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay gudoomiyaha midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu diiradda saari doono in si buuxda mas'uuliyadda amniga loogu wareejiyo ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ATMIS wuxuu 100% la jaan qaadayaa qorshaha kala guurka ee Soomaaliya tani waxa ay tusinaysaa in istiraatiijiyadda dowladda Soomaaliya iyo ujeedada ATMIS la iswaafajin doono ayuu yiri qoraal uu ku sheegay boggiisa rasmiga danjiruhu waxa uu kulamo la qaatay madaxda dowladda Soomaaliya oo sheegay in hanaanka lagu hagayo howlgalkan uu yahay ixtiraam madax bannaani iyo wadajir dhuleed ee Soomaaliya midowga Afrika wuxuu sheegay in howlgalkan uu yeelan doono ciidan guurguuro oo si degdeg ah u burburin kara al-shabaab iyo kooxaha hubeysan ee caqabada kuwa amniga iyo kala dambeynta Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa soo xiray shir saacado badan qaatay oo looga hadlayay abaaraha ku luftay deegaanada galmudug shirkan ayaa waxa ku sugnaa madaxda gargaarka ee UN-ka iyo kuwa caalamiga ah sida hay'adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanada galmudug shirkan waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha waxaana soo agaasintay wasaaradda gargaarka iyadoo gabjoog ka ahaayeen wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug waxaana lagu lafaguray saameynta abaaruhu ay ku yeesheen galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in abaartu ay saameysay dad gaaraya 700,000 oo qof kuwaas oo ku sugan deegaanada galmudug iyadoona madaxweynuhu uga mahadceliyay howlaha ballaaran ee wadaan wasaaradaha galmudug ee hay'adaha gargaarka oo shirka ka qayb galay sida lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhawaan magacaabay guddiga gurmadka abaaraha kuwaas oo ka kooban golaha xukuumadda iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka iyadoo durba uu bilaabay sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa gurmad degdeg ah wadana khayr warkani wararka wararkani dibaa wixii kalaba waxaan kala socon kartaan bartan internetka hiiraan.com kulankeena xiga amaana Allah